ciyaar dhaaftay aadna loo saadaalinayay kana mid ahayd ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland oo maraya meel xasaasi ah ee guruubada 8 dhamaadka ayaa galabta ku dhex martay garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa labada gobol ee ugu awooda iyo khibradda badan loona saadaalinayay hanashada koobkan waa gobolada Awdal oo difaacanaya koobkan iyo gobolka Maroodi Jeex oo ahaa martigeliyaha koobkan saaxiibada guusha ugu badan ka hantiyay koobkan ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland ciyaartan ayaa ku bilaabantay jawi degan oo labada gobolba soo bandhigayeen kubad qurux badan oo degan una muuqatay ciyaar aan la isku degdegayn oo aadna loo kala taxadiray qaybtii hore ee ciyaarta xulka gobolka Maroodi Jeex weeraro badan oo ay qaadeen ayaa waxa uu suurta gashay in ay la yimaadaan goolkoodii koobaad waxaana uu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo guuleedkiisi oo afka hore uga ciyaariyay xulka gobolka Maroodi Jeex qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isku soo noqday ayaa gobolka Awdal la yimaadeen goolkoodii barbaraha waxaana uu dhaliyay ciyaaryahanka khadka dhexe ee lagu magacaabo Culusay ciyaarta ayaa aad u kululaatay oo isbedeshay dadaalo badan oo ay sameeyeen xulka gobolka Maroodi Jeex ayaa ciyaartooyga khadka dhexe kabtanka kubad sameeyaha mishiinka xulka gobolka Maroodi Jeex Cabdi Kariin Guji kubad qurux badan oo uu ka soo shaqeeyay ayuu dhaliyay sidaana uu guusha ugu dhiibay xulka gobolka Maroodi Jeex oo yeeshay 2 gool iyo 1 gool oo gobolka Awdal ciyaartii daqiiqadihii ugu dambeeyay waxa ay sii socotaba waxa ay ku soo dhamaatay 2 gool oo uu leeyahay xulka gobolka Maroodi Jeex iyo 1 gool uu yeeshay gobolka Awdal sidaana xulka gobolka Maroodi Jeex ayaa ugu soo gudbay wareegga afar dhamaadka ama semi-finalka ee ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland